waayahay videoga hore ugu yar dheeraaday markaad intaas soo dhamayso ee aad foomka soo buuxisato waxaad samaynaysaa markaa inaad markaa qaybahan oo dhan aad ka dhigto pdf aad ka wada dhigto markaa instructionka raac dhammaan instructionada akhriya markaad waad highlight garanaysaa for example kan sheetkan oo dhan waan highlight garanayaa deedna waxaan tegayaa file sida ugu fudud waxaad ku samaynaysaa markaa print selection baad leedahay deedna markaa pdf ka dhigo pdf markaad ka dhigato waxaad leedahay print marka anigu tusaale oo kale si tijaaba baan folderkan ugu gurayaa okay marka magac baan u bixinayaa marka almost waxaa muhiim inaad magaca u bixiso application form inaad u bixiso si hadhow markaa safaaradda markaad u dirayso ay si fiican ugu aqoonsadaan markaa safe baan leeyahay marka imika almost kan waa 10 pages meelahaas ku gaarayaa okay marka almost saas baan ku save gareeyay oo haddii aan jaika wakan marka haddaan furo xogtaydii baa saa ugu jirta dhag markaa saas igu buuxaa hana ilaawina khaanadaa bannaan waa warqadaynu gaarka u daabacanayna markaa hadhow pageska waad ka saaraysaa meesha oo dee waxaa jira qaab pdf-ka markaad u bedesho tuulal baa online-ka lagu edit garayaa markaa dee inaad fahmaysaan baan filayaa oo pageka intaad ka saartad pagekiisa aad soo iskaan garaysatay aad kasoo shaambadaysatay meeshii aad ka tirsanayd ayaad halkaa ku bedelaysaa hadhow okay waxaynu markaa imanaynaa kan anakaswanka anakas sheetkana sidoo kale isagana saasaan highlight garaynayaa markaa isagana simply u highlight garaysan yahay markaa print baan leeyahay anakaswan baan leeyahay markaa laakiin waxaa muhiim ah inaad magacooda saxda u bixiso ama even okay waa anakaswan waad u bixin kartaa okay isaguna saas ugu save garaysan yahay markaa waxaa xigta anakastri markaa iyaduna caafimaadkaygii waxyaabahaasi ka hadlaysay iyadana waan highlight garaynayaa adigu qaabkii aad pdf marka excelka la joogo farsamooyin badan baa jira markaas hadba si aad ku fahmaysa weeye ayaad ka dhigan kartaa markaan u sidaan u wadaa waa sida aan isleeya ugu fududahay kana waxaan ku qoray anakastri okay markaa imika maxaynu haysanaa application formkii anakas 1 iyo anakas 3 baynu haysanaa saddexdaas haddeer halkaasay diyaar inoogu yihiin markaa waxaa kaloo jirtay anakas 2ga oo filekan wordka ah oo marka aad soo diyaarsatay oo isagana aad soo qortay ayaa marka waxaan idinku yidhi markaad magaciina halkaa ku qortaan intan idiin dhammaato waad daawacaysaa deedna dhakadaad ka wada seexaysaa dhammaan instructionka waxay ku qoran yihiin waad akhrin doontaa okay application guideline ka qoran yihiin marka halkan dhakadaad ka seexaysaa markaad dhammaanteed wada seexdo inta page ay kuu noqoto oo xogtaada dheeraanaysa halkan ka saar baan ku yidhi intan waan ka saar waad ka saaraysaa markaa halkaasaad mid walba ka bilaabaysaa ciwaanka hoostiisa research plankaaga halkaasaad ka wada bilaabaysaa okay markaad pdf ka dhigto ee markaa aad daabacato ee aad seexdo pdf scan ka wada dhig deedna iyadana halkaas soo dhig I mean folderkii halkaasaad soo dhiganaysaa oo saasaad u diyaarsanaysaa markaa waxaa ku xiga okay markaad intaad diyaarsato waxaad kaloo markaa diyaarsanaysaa dokumentiyadii kale markaa lagaa rabay ayaad dhammaantood diyaarsanaysaa okay markaad dhammaantood diyaarsato xogta ugu fiican halkaad ka helaysaa application formka markaad tagto halkaasaad ka eegaysaa halka ugu hooseysa halka ugu hooseysa akhri
marka application formka annex 1 annex 2 annex 3 iminka inaga saddexdaas way noo diyaar almost annex 2 gaas baan noo diyaarahay marka 2 gana wadkaad soo qornaysa aad soo diyaarisanaysa career plankaaga research planka iyo waxyaabaha marka shahaadadii jaamacadda oo weliba aad iskaan garayso tasdiiqin haddaad soo samaysana that's okay waa ku inay ku tasdiiqinsan tahay oo inay English tahay academic transcriptigi passaportkaagii physical certificate marka haddii marka iyadana haysta aad muhiim tahay warqad caafimaad haysato medical history haddaad hayso cusbitaalka ugu dhowaad ka soo qaadatayna aad muhiim tahay official English proficiency haddaad hayso thesis haddaad hayso oo marka master haddaad qofka ka baxay PhD da codsanaya kale weeye marka intaasaad diyaarsanaysaa haddaba sidee loo dirayaa dee ayaan markaa isweydiinaynaa marka waxaan ku diraynaa email ay leedahay markaa safaaradda Soomaaliya oo markaa ku taala waddankan Kenya oo Nairobi ku taala fadhigeedu yahay marka emailku waa kan aniga markan documentigan waxa weeye waa markay documentiga soo direen sanadkii hore 2024 bishii September bay ahayd emailku markaa waa kaas emailka halkaasaad ku arkaysaan xagga hoose descriptionka ayaan idin dhigi doonaa inaydan si fiican fiidiga u arkin waa suurtagal marka waxay igu dhaheen wuxuu xidhmayaa xilliga deadline wuxuu ahaa 20 September marka almost 18 cisho oo kala idin haray oo intaa waad ku process garan kartaan wixii markaa information ay aad halkan ku fahmi weydaan ama xogo dheeraad aad rabtaan waxaad weydiisaan simply safaaradda weydiiya oo markaa intan aan idin sheegay haddaad u baahantiin ka si faahfaahsan emailkan baad ku diraysaan message ka uga diraysaan marka dhammaan xogtaada markaa saa u diyaarsato emailka ku diraysaa marka anigu simply halkan waa kuwan documentiyada aan diray application formka waa kaa application form marka okay shahaadadii degreegii transcriptigii passaportkii declarationkii marka annex 1kii weeye marka detail of current work iyo research plankii weeye una annex 2 weeye English language certificate marka halkan waxaan reference baan sii raaciyay referee recommendation referee iyo marka award marka haddii aad support document fara badan haysatana waa iska raacsan kartaa oo waxa laga yaabaa inuu programka inuu strong ka dhigo hana ilaawina sawirku rabaad raacinaysaa safaaraddana laftarkeedana waad u diraysaa marka xogta markaan saa u gudbiyey almost halkan waxaan sidoo kale ku diray medicalki oo annex 3 ahayd emailkana waa markii interviewga la bilaamiyey oo almost markii aan diray waxaan diray September 17 baan diray marka October oo marka almost 1 month later waxaa la bilaamiyey interviewga halkaasaan October 16 2024 marka qaabkaas ayaad markaa u codsan kartaa dee waxa weeye documentigaagu muhiim aha in uu Somaliland ka yimi iyo inuu Soomaaliya ka yimi labadaba waa la aqbalayaa marka haddii weliba dee Somaliland aad bay documentigeedu ma garanaysa confidential u yahay Soomaaliyana sidoo kale uu yahay marka iyagu qudhoodu way ogyihiin inay marka qaar documentiyadu ay kala duwan yihiin oo xogahoodu ay kala yar duwan yihiin marka waad weydiin kartaa safaaraddaad la hadli kartaa oo emailkaasaad ayaad kala hadlaysaa guul baan idin rajeynayaa dhammaantiin inaad scholarship ka heshaan waxa weeye habeen wanaagsan waqti wanaagsan oo idin tahay ayaan idin rajeynayaa guuleysta